kulanti wanaagsan kuna soo dhawaada waraysi aanu la yeeranayno nin dhalinyaro ah oo waayahan dambe social media aad u haystay Soomaalidu ay ka hadlaysay oo magaciisa la yiraahdo Sufyaan Sheikh Ahmed. Sufyaan iminka waxa uu joogaa stuudiyaheena magaalada Nairobi, aniguna waxaan joogaa boqortooyada Ingiriiska. waxaan wax ka weydiin doonaa oo barnaamijkan duruucdiisa iyo inta ugu badan aanu ku waxaan ka hadlayno annaga haddaan Soomaali nahay ma aha istaagida calanka kaliya ma istaagida calanka waa different manners waxaan ka hadlaynaa oo kaleeto in loo qaado hees lagu cadaynayo oo afka laga leeyahay shirki macnaha two different stage way sheekha wuxuu qoray rahimahullah waa shirkul asghar uu yiri in ba loo istaago calanka laakiin inta waxaan ku haynaa in loo heeso oo loo qirto oo loo ooyo adiga hadda waxay leedahay xaada istaagta ilina iga timaada ayada quraanka uu akhrinaayna probably xaada kuma istaagta ilina kama timaado calankan Soomaaliyeed ee buluuga anagu ma lihin waa naloo keenay xataa Mareykanka isticmaala brigade generalska la siiya ciidamada markii darajo ay dalacsiyo waa maxaa la confederate flag weeyaa tiri dagaal lagu galay laakiin waxaa jira wadamo fara badan oo calamadoodu ay almost ay yihiin identical isku eg yihiin isku midna yihiin marka in calan anagu aanu leenahay dad kale asagoo kale ay haystaan waxba yaraatee macna ma lahan maadaama wadamo fara badan ay isku calamo yihiin mithaal baan ku siinayaa waa ku fahmay adu soo gal markaas mithaal baan ku siinayaa wadamadaas waxaa ka mid ah isku calanka ah oo calamadoodu ay isku nooca yihiin ama aadka ay isugu dhow yihiin oo aan la kala garanaynin waxaa ka mid ah Netherland wadanka la yiraahdo iyo wadanka la yiraahdo Luxembourg oo kale waxaa ka mid ah Ireland iyo Ivory Coast Africa iyo Europe ay kala yaalaan calamadoodu way isku eg yihiin waxaa kale oo wadamadaas ka mid ah Australia iyo New Zealand calamadoodu isku eg yihiin waxa calamadoodu isku eg yihiin Venezuela iyo wadanka la yiraahdo Mexico way isku eg yihiin haddaad wadamada islaamka aad timaadid waxaad arkaysaa Masar iyo Yemen oo kale shimbir yar baa u dhaxaysa haddaad shimbirta ka qaadi waa isku mid weeyaan waxaad kaloo in badan ka hadashay arrintan bisha inaad rabtaan inaad keentaan oo tirahdaan calan bisha ku sawirantaan Kenya islaamka loo yaqaanaa islaamka meel ay kaga qoran tahay bisha in islaamka uu leeyahay ma jirto waa wax Cuthmaaniyiintii ay keeneen sida awgeed wadanka la yiraahdo Pakistan iyo Algeria labadooda calan waa identical marka midab yar oo u dhaxeeya laga reebo what is the point haddii calankan cid kale ay haysato macnaha ku sayana very good thank you very much and inta aad soo tirisay with a little reservation wa xaqiiq markaan kula hadlo little reservation waxa weeyaan wadamadaas calamadooda waa isku egyihiin annaga waxa aan diidanahay ma aha isku ekaanta waxa aan diidanahay annaga maba samaynba awaale ma samayn calanka Soomaali ma samayn taariikhdiya sheegayso so ama ha isku ekaadeen ama yeesan isku ekaanin waxa ku diidaysa hadii la weylaha taariikh sheegaysa in calankan meel kale laga keenay ama Talyaanigu uu sameeyay Soomaali u yaalay 1889 hadii la weylaha kuma aanan mashquulina waxaan dhihi lahayn probably waa isku ekaa kara ufahmino midda marka ku diidayso doodaas ba ka sokaysaba oo u baahan tahay inaad xalliso intaan la gaarintaas calanka aan maanta haysano isagoo hoosta guduudka qayb hoose saddex qaybood leh qaybta kore oo ahayd crown key oo ahayd boqortooyadii sheegaysa markaas inay ahayd boqortooyo Talyaanigu ahayd qaybta hoose oo laba xidigood leh oo ka turjumaysay dhiigii Talyaaniga ee ku daata Soomaaliya qaybta hoose oo qaybta dhexe oo calankii buluuga oo xidigta dhexda kule oo shabeelkii leh astaanta ka lagu darale waxa Talyaanigu uu keenay Soomaaliya 1889 therefore dooda aad sheegayso ahaa isu ekaanshaha waxa ka hor imaanaysaba oo ka horeysaba horta marka hore anagu ma sameeyno calankan hadda buluuga ah oo xidigta cad dhexda ku leh ma waxa ku taala calaamad cross no what is your problem then my problem is saddex shay calaamada crosska calanka kuma taalo calanka waxa ku taala waxa la yiraahdo pentagramku waa astaan diineed waa mid labaad anagu ma samaysan xagee kaga taala mid aan kala qaadno mid xagee kaga taala calaamada aan sheegay sida oo astaan diiwaanka
xidigta waxaan u naqaana xidigta ocean geeska maadaama aad tiri Google ay ag yaala Google garee waxaa Google gareysaa the symbol of pentagram muxuu symbol yahay pentagramku wuxuu symbol u yahay afar diinood Satanism Wiccas Neopaganism and diinta kaloo la yiraahdo waxa la yiraahdaa Kabbalah afartaas ba calaamada u tahay pentagramka waxa la isticmaalay intaasoo sano waxa isticmaalay musaxariinta waxa kaloo calaamada xidigtaahi ay ku jirtaa aan dhihine oo iska leh oo ay loo keeno meesha noo galiyay wadanka Talyaaniga the coat of arms of Italia ama astaanta qaranka ee Soomaaliya Talyaaniga aan dhaho waxa ku jirta xidigta cad ee shangeeska ee Soomaaliya calankeeda uu galiyay ee loo yaqaano Talyaaniga marka la joogo Estrella d'Italia ama xidigtii Talyaaniga almost waxay la mid tahay xidigtaasi I'm sure inaad hadda arkaysid waxay la mid tahay wadanka New Zealand iyo wadanka Australia waxa ku jira Union Jack calan dho waxa lagu jira oo symbol u yahay inay yihiin wadamo hoos yimaada boqortooyada Talyaaniga ama aan dhaho boqortooyada Ingiriiska Commonwealth Union Jack wuxuu ku dhex jiraa calanka Australia calanka New Zealand waa indicative wuxuu cadeynayaa inay hoos tagaan boqorada Ingiriiska inay hoos tagaan annaga marka calankeena xidigta dul saaran ee xidigta cadahi waxay si toos ah uga timid ama soo galiyay Talyaaniga waxay hore ugu jirtay calankii hore oo Talyaanigu uu 1889 keenay waa la bedelay 1936 qaybtii kore ee crownka ahayd waxa lagu bedelay calaamadii fascist markii Talyaanigu noqdo fascist isla ayadii baa noo taala wali astaanta qaranka maanta aan leenahay ee Soomaaliya haddii Talyaanigu uu calan keenay waa doodda saad ugu hadalka u dhigtay Talyaanigu uu yahay dawlad Christian oo Roman Catholic qaarkood Protestant bay leeyihiin diimo kala duwan baa lagu soo baray taqaana ay leeyihiin maxay noogu keeni waayeen mid calankoodii iyo diintoodii oo xidigta noola doorteen Talyaanigu waa Catholic iyo Protestant maxay u gali waayeen calaamadii Catholiga ama calaamadii Protestant maxay u gali waayeen waxaad tiri ama aan isku waafaqnay calanka xidigta ma aha waxa calaamadii Kirishtaan ku jirta waa astaanta qaranka ee maantay qof Soomaaliya oo ka sameeyay maantay taariikhdiisa aan hayno waxa ku jirta calaamadii Kirishtaanka ee la yaqaano loo yiraahdo Greek Christian Cross waxay ugu jirtaa meesha kore su'aashaadii marka ahayd maxay loogu gali waayeen sidaas aan uga jawaab waxa kaloo ka tageen oo ahayd in aan yeelano halku dhig wadanku inuu leeyahay qaybta hoose ee bannerka ee caalamka ugu qoran halku dhig wadan kasta ugu qoran yahay anaga waa noo maranta waxba nooga maqorna taasaasan uga tagaya astaanta qaranka ee Soomaaliya waxa sameeyay Talyaani astaanta qaranka ee Soomaaliya waxa ku jira calanka buluuga haddii marka calankii buluuga ahaa ee astaanta qaranka iyo wixii dhama ku dhameystiran yihiin Talyaaniga ay u qoran tahay adna aadan ugu diiri karin oo dan dhigi karin maanta qof Soomaaliya sameeyo dan dhigi karin oo dan sheegi karin ya sameeyay marka ya taariikhdaada marka ya sameeyay waxa halkan jooga oo hadlaya nin la yiraahdo Maxamed Cawaale Liibaan oo Maxamed Cawaale ku sheegtay astaanta qaranka ma sheegan wali okay anagu waxaan ka hadlaynaa oo hadda anagu aan haysanaa astaanta qaranka waxa ku jira labada shabeel oo aad ka hadashay in badan Talyaanigu shabeel ma laha aniga waad iga jaahil bixi macnaha wax waay ma rabo inaad su'aalaha intaad i weydiiso hadana dhinac kale uga baxdid markaan xaqiiqda keeno astaanta qaranka ee Soomaaliya waxaad leedahay calankan waxa keenay oo noo sameeyay dawladda Talyaaniga waxaad leedahay maya astaan Kirishtaan kuma taalo oo waa astaanta Kirishtaanku ma dhihin astaan Kirishtaan kuma taalo waxaan ku astaanta Kirishtaanku waxay ku jirtaa astaanta qaranka right so aan kala qaadnaa because inay isfahanaan rabnaa calanka buluuga oo markii aan saarnay oo heesta loo qaadayay aanu halkan ka saarnay caawa calankaas waxaad aaminsan tahay inaysan ku jirinin astaan ka turjumaysa diin aan diinta islaamka ahayn no ma aaminsani waxaan aaminsanahay inay ku jirto astaan ka turjumaysa afar diinood waxaad sheegaysaa xidigta yes so xidigtu afar diimood bay ka turjumaysaa calaamad caalamka dhan lagu yaqaano afar diimood Satanism Wiccas Neopagans Kabbalah you can google it right now hadda google garee waxa halkan ka muuqata intaas oo maxaa lahaa symbols ama maxaa lahaa logooyin ah oo aan maxaa lahaa dad kala duwan ay sheeganayaan haddii ayagu ay sheegteen oo ayagu ay saas u haystaan waa ayaga iyo qushigooda annaga Soomaali Maxamed baana la yiraahdaa
shanta waxay ahaan lahayd ayadii qushigooda waxay ahaan lahayd dhegayso ayadii qushigooda waxay ahaan lahayd hadda isku daytiida hal xaba iga ilaali statement ha samaynin su'aali weydii markaas waxa tirada ka jawaab hadda statement samaysid statementkiga inaan ka jawaab ku qasban waxaan halkan ku haystaa resource aadan adigu haysanin ama aad horey u aragtay ay kan google research waa sameeyay laakiin cabdifatax laba haysan ku haysan inta adigii ku ii soo diray calankooda oo taageeray shirkada tahay waa adigii ku guul daraystay uu kaan cami resource ka hayso waa ka guulaystay okay harabona ku heshii karin hal habona ku heshii karin ma marka waraysiga waa joogin hal haba ku heshii karno haddii aad leedahay dhagayso hal haba ku heshii karno wariyaanahay haddana opinionkaygan sheegaya ku heshii karno isma raacdo iyada ama wariye noqo ama ka doonno arrinta labada dhinac nool bax معناها waxaan ku xushmaynayaa inaad tahay kugu iri laakiin marka aanu kula hadlayo dadweynaha aan kala helno dadkan diimaha kala duwan sheeganayo aad leedahay xidigtu diimo kala duwan bay u taagan tahay ayagu siday u arkaan weeye annagu mas'uul kama nihin maxamed ruux ii kaadi ayagu waxay u arkaan weeye ukaadi waxay ayagu u arkaan weeye annagu waxaan u aragnaa xidigtaanu inay shanta Soomaaliyeed ka turjumaysa saarsan u haysanaa ayagu naguma haystaan annaguna tooda kuma haysano Ciisa bidiin Muusa bidiin baa la yiri ummadda Soomaaliyeed inaad u qabato tiraahday dad baa waxaan wax u eg haysta oo waa khaldan yihiin waa ku khaldan tahay waxa ugu khaldan tahay ayagu waxay u haystaan ayaga ka mas'uula quraanku ولا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى مسؤول لكن absolutely waxaad samaynaysid fair ma marka laan kuugu celina opinion iyo reporter isma raacaan أنا جستي كوا أنا وين سؤال ما فيري أنا جستي كوا عادي سؤال waxaad adigu ii sheegtay baan soo qaaday waa google gareeyay waxa halkan ka muuqata 2000 different logos ayagu waxay aaminsan yihiin waa gooni qaldan tahay look ina iskari waa qaldan tahay waxa leedahay that is lack of intelligence waxaan inaadan waxba haynin look waxaan u jeedaa inaad meel ila ma haysato calaamad ay caabudo waxay u haystaan shanta Soomaaliyeed inaan hadlo mise maanta aan hadlo waa ku sugaa waa ku dul qaadanaa iska hadal maraha hadlay oran baa haba soo booleysa haba meel baa u xararaysaa maya hada opinion aan samaynin no opinion ma samaynin waxaan ku iri khaladka aad galaysid waxay tahay fiiri ani waxay leedahay opinion ha samaynin adigu let me make this point and I'll give you وخلدنتها صورتان كويرو I'll in context don't take my words out of context هذا الجملة هانو قاضو هدان كويرو هذا waxay la mid tahay waxa hadii igu eedeynaysid ninkii lagu yiri oo kale waxa lagu yiri adigana maantay you don't have a point a single point or defend charisma hada waxa leeyahay lakum diinkan ka hadlaysid adiga ma samaysan waa lagu keenay how are you going to say marka waxa weeyaan ayagu tooda qaatan inuu tadana qaad adiga ma samaysan be hada wax samaynayd ha laakiin adiga ma samaysan talyaani oo ku keenay waa loo soo dhigay waa loo keenay waa loo qoray saasa ku qaadanay hada adiga samaynayd oo qof Soomaali uu samay lahaa ha waa qaadanahay waa ku doodina dooda laakiin good ina khaldan tahay marka la aan ku tuso haduu qof Soomaaliya sameeyay lahaa عمي لا waa khaldan tahay ma wax saxaafada ka baxsan lagu dhaw waxaan waa ku khaldan tahay ma yaani no dadka khaladaadka ugu badan Soomaalida ka gala waa mutacallimiin oo fikra khaldan inta badan ku keena أنا مركان ماشان سوف ديسناي أو ورئيسي كان كأقبلي ووجا ضد عالم كي واحد كقبتي ووجا
inaad pious tahay oo aad aaminsan tahay waa ogaa inaad difaacanaysana waa ogaa yet waa ka aqbalay inaan ku imaado so respect me opinionkayga inaad dhegaysatid laakiin inaad macnaha annagoo live ku jirna aad tiraahdo waa qaldan tahay micnaheeda waxay ku tusaysaa inaadan aayad hayn ee waxaad haystaa ay tahay inaad nin odaya xagxagato taasna ceeb waa ani weli waa qaldantaa ma ku dhihin okay waa ku dhegaystay aan kala baxno horta arrinta ku saabsan nin aqoon-yahana ahay waa khaldan tahay lama oran karo cumar bin khadaab baa mimbarka laga ridiyey adigu cumar kama fiicnid kow dadka soomaalida dhibaatada ku hayana waxaa ka mid ah dad wadamo qalaad inta taga fikrado khaldan soo guuriya oo yidhaahda aqoon-yahan baan ahay oo buugaag wata marka in lagu yidhahdo waa khaldan tahay inay hambal kaa dhigtay ahayd imaamu shaafici wuxuu yidhi waxaan jecelahay markaan qof doodno in aniga layga guulaysto oo anigu aanan guulaysan macnaheedu marka diin laga hadlaayo waxaan ka hadlayna diin maaha waxaan ka hadlayna waxa weeyaan diimaha iyo kristanka ka hadlayo diimaha qalaad la soo barayo 200 macnaha waxaan ka wadaa kitaabka jaamaca ayaad quran iyo xadiid waxaan ka hadlayna waxa weeyaan facts of history ood rabta inaadan ogolaanin ood u difaacayso caadifad kale ku hayso aanu wada hadalno sidii 2 nin oo Soomaaliya dhegayso sidii 2 nin oo Soomaaliya wada hadalno calanka iyo astaanta haddaad difaaci karto waa ku ogola difaac laakiin hay dhihin xidig nin kale uu sameeyey anuu saan rabaan u qaadan asaa ku keenay wake up xafiid haddii nin Soomaaliya hadda uu sameeyo xidig kale oo meesha tan 5 gees ay ka leedahay 6 geesna ninka sameeyo Soomaaliya ma qaadanaysa haddii aan xaqiijino dhagayso haddii aan xaqiijino waxaan qof Soomaali inuu sameeyo oo aanan u haynin annaga reetalo ku nool haddii aan ogaa lahayn inuu qof Soomaali uu sameeyo oo runta ay tahay cawaale inuu sameeyo ma aanan gelinin dooda aan gelinin waxaan ka bixi lahayn dooda dhinac kale waxaan dhihi lahayn waraan iska saxno laakiin hadda waxa meesha yaalahay cawaale ma sameyn cawaale in lagu haystay waraysigiisa uu bixiyo 1983 cawaale marka uu leeyahay anaa gacanteeda ku sameeyay tuulida ku xigta wuxuu ku darayaa dad ayaa igu haysta ama dadka igu haysta waa beentood waqtigaasa lagu haysta cawaale waqtigaasa looga calanka cawaale inuu soo sameeyo isaga qiraya soo xigta ay quraana sheegtay calanka Soomaaliya ka tir waxaas lama dhihin waxaan sharxay hees English oo u taala loo qoray loo qaado calanka la yiraahdo Bonnie Blue Flag oo la mid ah calanka Soomaaliya oo asalkiisa meeluhu ka yimid oo dad ay leeyihiin heestii English ka akhriyay waa sharxay ereyga ugu dambeeya hooray wuxuu yahan sheegay waxaan kaloon la barbar dhigay ereyga Soomaaliga ee aan ku yaala meesha oo la yiraahdo cawoydaha that is a comparison I made isku barbar dhigay sameeyay kaas ah ma ahayn quraan adigu waad xalay ka hadashay astaanta qaranka ma aadan taaban weli calankii bisa xoogaa ka hadashay astaanta qaranka weli ma aadan taaban ana igu yiri calankan ka hadlayna astaanta qaranka uma aadan darin marka dib baad ka keenay ka soco haye mar haddaad diiday ma kugu qasbayo ma diidinina mawduucani bay tahay marka waxaan rabay calankii in uu yahay maaragtay adigu aad xijirtu inay ka timid diimo kale annagu waxaan u haysanaa waa kuu sheegay dadweynaha Soomaaliyeed calankan anaga aan sameeyay calankan cawaale horeyn waxaan rabaa bulshada Soomaaliyeed inaan la wadaago calanka anaga aan keenay haddaan ahay tawakkal innihiisu miisanahay Soomaaliya inay ku jiraan dad fara badan oo anaga naga aqli badan naga cilmi badan naga waay aragsan maalinta ay timaado in calanka la bedelana ayaha calanka inuu noqdo mid laga wada tashto ee uusan noqonaynin in tala ku nool kaliya loo daayo annaga ujeedadeenu waxay tahay calanka in la bedelo taas marka micnaheedu waxa weeyaan calankan aan wadno ma aha midka aarna Soomaali inaan ku dalqamino ama aan gelino haddii nala qaato is fine haddii mid kale Soomaali ay keensatana that is exactly waxa aan u olool kaliya keenna in la qaadano ololuhu ma aha laakiin waxaan dad waaweyn hadda la timaadid problem hadda aragtid solutionka inaad raacsid way taas waa mid astaanta xidigta aan iri waxay u taagan tahay waa astaan islaam diinta islaamka waxaan kugu raacsanahay meel ay ka qoranta inaysan jirin bil in la isticmaalo kuma qorno diin waxa kaloo runtaa ah in asaaskii ama markii ugu horeysay ay bilaabeen Cusmaaniyiinta inay bilaabeen ayadana waa xaqiiq waa runta waa kugu raacsanahay hase yeeshee marka dad mutacallimiina waxaan rabnaa bulshada in la hogaamiyo waxaan rabnaa bulshada in lagu hogaamiyo nidaam aan keenaynin friction ama isku dhac ama burburin qarankii ama in nidaamka dhammaan laga hor yimaado waxaan samaynaa symbols waxa u furan dood sidaad hadda adigu la timid oo kaleeto
dad badan oo Soomaaliya nala soo xiriiro yar war xidigtu haddaad islaam ka dhigaysaan dayaxu intuu islaam ka galaa oo run ma galo ma aha dayaxu islaam diinta islaamka meel ay uga taala male laakiin ujeedadu waxay tahay calankan iyo astaantan annaga haddaan Soomaalina ma aanan samaysan hal bedelo wixii lagu bedeli lahaa annaga kana nabi Soomaalina aan muujinaysa maadaama Soomaalida markii hore Talyaanigu ka dhaadhiciyay xidigtan shanta geesli waxay u taagantaa shanta Soomaaliya xidigtiina ay tahay xidig asagu uu leeyahay calaamadiisa wadankiisa ugu taalo asaga calaamadiisa haddaan meesha ka bixino Soomaalidina ay aaminsan tahay shantii Soomaaliya inuu taagan tahay waxaan ku qasbanahay aan rabnaa inaan ilaalino Soomaalinimadii aan rabnaa ilaalino isku dhaganaashii iyo xiriirkii taariikheed iyo diimeeda Soomaalida ka dhaxeeyay sheegashadeediina aanan ka taginin waayo annaga waxaan aaminsanahay shanta Soomaaliya inay mid tahay ma kala duwanin ma aaminsan wax la dhaho federalism ma aaminsan calamo kala duwan waxaan aaminsanahay Soomaaliya meel kasto ay joogto inay isku midab tahay isku diin tahay isku luqad tahay isku dad tahay hal inay tahay sidaa daraadeed shan xidigood waxaan meesha ugu qornay inaysan lumin taariikhda shanta Soomaaliya oo wadamo badani ay rabaan inay tirtiraan arrinta ku saabsan shanta Soomaaliya waxaad aaminsan tahay inay mid yihiin shanta Soomaaliya markaan ku leeyahay mid ay yihiin macnaheedu waxa weeyaan caalamka waxa la yiraahdo waxa dadka lagu kala soocaa ethnicity oo ah dhalasho iyo macnaha meesha ka soo jeedaan waxa lagu kala soocaa luqad waxa lagu kala soocaa diin waxa lagu kala soocaa midab iyo isku ekaansho la'aan annaga intaas oo dhan iskaga mid aanahay macnaha aan ka wada Soomaalidu waa mid taas way macnaheedu marka siyaasad ahaan ka doodi siyaasad ahaan annaga taas waa ku sheegay businesska siyaasadda tala ku nool waxa weeyaan hadda waqtigan xaadirka waxay ku jirtaa change of macnaha structure ka wadanku ku fadhiyo siyaasadda noocaas hadda kuma jirna anagu mana galno waa gartay su'aal kale oo aan ku daro meel yar Soomaali Kenya meesha ay joogaan waa ku sharfan yihiin Soomaali Ethiopia meesha ay joogaan waa ku sharfan yihiin waxna waa muujin Soomaalinimadii iyo mustaqbal in laga hadlo waxna waa waxa hadda waaqiciga jira waxa waaqiciga jira tii Soomaaliya iyo Somaliland aba hadda waxa weeyaan xaaladooda xun tahay dreamkaas riyadaasi aniga ilmahayga iyo kuwii si dhalanay dabcan u taala anagu hadda saasan tahay digahan maxaa til marka u taagin shanta Soomaaliya u taagin baatan macnaha markaan ku celiyo symbolka aan u soo qaadanay saan hore kuugu sheegay ma aha wax oo macnaha intii hadda aan sameeyna calankan waxaan bedelay waxay u taagan yihiin shanta Soomaaliya yes marka yaa sameeyay calankan hadda idinku aragtaan Soomaaliya calan noqdo hadii la yiraahdo yaa sameeyay waxa sameeyay kooxda tala ku nool oo adigu gudoomiyaha u tahay yes wax fikrada ma kula hayd adigu shakhsi ahaan ilaa adaa nagala joogo inta kale waa dhunteen meesh ku jira lama yaqaan adigu fikrada ma kula hayd waxa lagu darayo naqshada qof walba oo ku jira central committee ama guddiga dhexe ama guddiga fulinta ee tala ku nool fikirkiisa waa la dhageystay waana la qadaray xidigtii baa ku jirta oo shan xidigood baa ku jira yes waxaan mooday xidigtu inay tahay diin shaydaan oo qalaad oo naloo keenay xidigtii oo sideedii ah oo shantii geesood leh laakiin shan xabba laga dhigaa ka dhigtay marka ma shan shaydaan oo hor laad noo keentay adigu waxaan u malaynayaa calanka aad haysato inuu yahay midkii ugu horreeyey ee aan display ku samayno hadda midka cusubi wuxuu yahay xidigaha waxaan u soo qaadanay hexagram xidig walba ahba waxay leedahay 10 gees waddan kaloo caalamka isticmaala ma jirto group isticmaalana ma jiro so calanka aad haysato maaha kii updated updated version maaha fine laakiin waxaad at some point inta isku tagteen aqoon yahaniintiinu jaamacadaha waaweyn ka soo baxay intaad fariisateen oo adiga kaliya la yaqaan inta kale sumad ma lahan obviously intaad fariisateen baad waxaad keenteen calan xidigu ku soo waran tahay ama shan xidigood aadaan ama 20 xidigood aadaan waxaadna igu tiri yukaan cami andamay waxaadna igu tiri xidigtaanu 4 diimood oo qalaad ayaa iska leh sidaas awgeed ma rabno xidigtiina waa kuugu dhagan tahay markaas ma khaldanaydeen mise waa saxsanaydeen hore okay so waxaad weydiinaysaa wax aan hore u soo samaynay oo soo saxnay waxaad igu xugminaysaa wixii aan samaynay 7 bilood ka hor 8 bilood ka hor saas rabtaan aad igu xugmisid maya waxaan rabaa inaan ogaado markaa xidigtaan qorayseen oo aad sawirayseen shanta xidigood obviously mushkiladuba xidigtay ka socotay xidigtii baad keenteen idinkoo aqoon yahaniintii ah
oo buwaagtii Maraykanka iyo Ingiriiska iyo Faransiiska iyo Isbaanishka xambaarsan baad timaadeen waa fariisateen hal xidig baad ka cabanayseen oo 5 gees leh waxaad keenteen 5 xidigood oo mid walba 5 gees ay leedahay absolutely marka aan kaaga jawaabo marka waa maasantahay annaga waxaan nahay dad soo bartay saan hore kugu sheegaba wax la dhaho political philosophy and political theory political philosophy macnaheedu waxa weeyaan marka aad rabto wax inaad soo bandhigto waxaa la isticmaalaa ama laga sameeyaa harvesting wax la dhaho waxaa fikirka iyo opinionka laga qaataa shacabka aad rabto inaad hogaamiso waxaa la fiiriyaa waxa la dhaho survey fikirka xidigaha markii ugu horreysoon samaynay waxaan ugu talagalnay inuu noqdo phase 1 waayo marka aan rabno shacabka insaanka ah ee Soomaaliyeed ee intooda badan ay yihiin dadaan waxba akhrin waxna qorin marka aad u soo bandhigto wax drastic ah oo ka bedelan wixii ay yaqaaneen waxa imaanaya in ay kugu timaado caqabado fara badan oo aadan qaadi karin waxaan ugu talagalnay inaan samayno phases wax la dhaho phase 1 phase 2 phase 3 and so on hatta marka aan dooda soo marigno haddaad fiirsato doodaha aan banaanka keenayno waxay leeyihiin gradual shift oo macnaha in kan la keeno ayaan la wado lagu darakan ayaan la wado lagu darakan si dadka macnaha loogu sameeyo education waxaan nahay macallimiin waxaan dad wax bara dadka waxaan ugu talagalnay dadku inay wax bartaan soo saad u aragtay calanka kow waxaan samaynay xidigihii caadiga ah oo Soomaalidu ay taqaanay oo 5 ah iyo mid dhexda ku jira xidigtii shaydaanka yes absolutely midii shaydaanka waa ku qorana meesha ujeedadan ugu qorana waxay ahayd in aanan samaynin drastic change oo ah aad og tahay qofka bini aadamka wax cusub hadaa keentid waxa laga yaabaa markiiba inuu kula dagaalamo waxa laga yaabaa inaanan helin chance-kii xataa la ku dhageysan lahaa laakiin waxaan helnay maadaama aan xidigii wadno waxaan helnay wixii wax ka duwan doodeena markaas haddaad dhageysan lahayd waxay ahayd hal xidig 5 xidigooda ka badan wadan baan xidig siin waa la qaatay dhageysan ku dhameeyay ninka la yiraahdo xaafido markii taasna la ka qaatay waxaan qornay Allah oo u qoran digital ma xidigaha la joogno xoogaa ya xidigaha rabayna la joogno xoogaa shanta xidigaha la joogina may waa calanka dhan rabayna ku sharxo xidigihii marka time markii la gaaray ya shay saga ka dhaxyaa midba mar aan qaadno Allah iyo waa xidigaha marka kala jawaabaya so waxay ahaayeen gradual education wax barid tartiiba oo raba shacabka Soomaaliyeed kow in waxay ay yaqaaneen looga bilaabo calankii la bedelayaa wax yar baa laga bedel waxaa timid marka in la yiraahdo bishan ku soo darna hadda waxaan kugu raacay bishu inaysan ahayn calaamad islaam annaga waa ognahay bishu inaysan ahayn calaamad islaam laakiin shacabka Soomaaliyeed waxay u yaqaanaan bishu inay tahay calaamad islaam dadkooda inta badan meesha ka timid ma yaqaanaan Uthmaaniinta inay sameeyeen yaqaan adigu research samaysay you did your homework marka bini aadamka markaad rabtid inaad wax gelisid waxa loo gariyaa si gradual haddaad tirahdid hal mar aan wixii dhamaa gelinayaa ما أود وما لهدينا جلس أنا قلنا وحنا عدد صوبرتي واحد political philosophy and political strategy so that is قاعدة أنكو سعودنا وأنا ما سنت يسي مشكلة ذا ماشان كجرت واحد تهاي وحدت كلمتين كتلا عشان بعتبر داو وقاطع وايدين بدرنا كو وكسو قدم هل وكسو قدم أكو دقيست تفضل هذا وكسو قدم نادي أنا ترى داو حد وحلا تاجين كذا الواقع كان عادي وأنا كوش أسود وعن كوني adaa ka gudbay aniga baaburkayga hal geer buu ku socdaa tartiib buu socdaa 90 mile an hour baa ku socotaa because waxa ku saaran maxaa lahaa engine V8 the challenge relax bay iga dhagantahay xidigaha kama maarmeen marka aqoon-yahankii Maraykanka iyo Canada iyo ka soo bartay wax meesha la yiraahdo Spain baadalkii dib ugu soo noqday dabadeedna hal xidig buu nagala dagaalamayo 4 diimood ay leeyihiin wuxuu noo keenay 5 xidigood marka kugu lix baad noo keentay xabad gudaha ku jirta oo la dhaho Star of Unity 5 banaanka ku jira oo taagan the 5 Somalis waa gartay marka mushkiladu halkan waxay tahay meeshii aad xidigta kala dagaalami lahaydeen waxaad noo keenteen xidiga kuwii ka badan marka diimihii iska batay baan u qaadanay dadku siyaabo kale u fasiri karaan waxaadna hadalkaaga ku jiray inaad tiri political philosophy aan bartay waxaan doonaynay dadka inaanan drastic change ku samaynin tartiib aan u bedelno walwalka lagaa qabo waxa ay tahay inaad ujeedo kale iyo diimo kale iyo dhaqamo kale iyo afkaar ummad kale aad fulinaysid
ayay u tahay dadkan Soomaaliyeedna aad doonaysid waxaad kaga kalluumaysatid oo ku soo dhawaysid maxaad arrintaa ka oranaysaa thank you very much runtii waxaad moodaa mahmahda jirta luqadda Spanish ko tirada no hay más ciego a quien no quiere ver y no hay más sordo a quien no quiero oír qofna kama dhagala ama dhagoola kama qofka rabin wax maqlo qofna kama indhala qofka rabin wax macnaha taasan ka wada waxay tahay su'aasha aadi weydiisay waxaan ka jawaabay 100 mar haddana waa kugu celinaya annaga waxaan leenahay philosophy iyo qaacido waxa noo qoran waa wax banaanka yaala qofkii nagu raacaya iyo qofkii nagu diidaya dadkii Soomaaliyeed waa nagu raaceen waa na soo dhaweeyeen haddii aan nahay dad khaa'imiin oo la soo dirsaday ma dhahneen dastuurka islaamka rabnaa kitaabka jaamaca lagu xukumo qof la soo dirsaday kama suurta gasho in uu yiraahdo diinta islaamka ayaan rabaa qaacidada islaamka ama kitaabka jaamaca ahana lagu maamulo waxay beeninaysaa taasi qof kasta oo aamina ama ku yiraahda asagoo caadifad kale ay hayso yiraahda nimankan banaanka laga soo dirsaday waa sidaas nin marka arintaas suurtagal ma waxaan rabnaa annaga waxaan aaminsanahay waxaan u taaganahay waxaan u ololeynaynaa kitaabka jaamaca inuu noqdo dastuurka Soomaaliya laakiin iyo waa khiyaantay waxay ahayd inaad ii sheegtay inaad duubayso imaada sheegay maxay khiyaantay no that is a precaution aniga waxa waaye waxaan ku ogaa inaad tahay nin calanka taageersan waxaan diidanahay hadhow tala ku nool ideas xalan ka doodnay waa fiirinay waxa aad u taagan tahay iyo fikirkaaga adiga aan baaritaan kugu sameynay waxaa noo soo baxday inay macquul tahay inay caadifad jiri karto go'aankana waa qaatay wareysiga inaan ku siiyo therefore waxaan u sameynay security reasons inaadan hadhow wixii aan iri waxaan ahayn inaadan soo